لايف بان سoo gali doonaa hadii ilaahay idmo saacada kadib telefoon baan hadda ku wada hadlaynay familkayagii iyo dadka isaga la joogay oo ka agdhawaa dad kale ugu la hadli doonaa waxaan u soo noqonayaa dadka shacabka oo taageerayaasha Omara inaad Omar meel fiican buu marayaa annaga iyo familkiisii iyo annagoo familkiisii gacanta ku hayna waxa uu u baahan yahay ma jirto within a couple of hours after uu hadli doonaa hadii lahayd 100% hours uu hadli waayo waxaad ogaataa meesha shubcada ku leedahay islaamkii waa agteena ka tahay waa ku sharafna eri oo maaratay oo ogeen hadaba ku hadlo inaad eero gacay inaad noqonayso anay kugu noqonaysa ma wixii qadar ah hadaa hubtid waxaad tiradaa waa hubaa 100% uu hadlayaa hadii kale tana waxaad tira inuu lacala uu hadlaa laga yaabaa sida annaga familkii baan nahay inuu soo noqonin ooga inaad reejay family oo inaad familkii tahay waa ogahay laakiin nin social media faansan baad qadartu waa ibaan kadhaa wax kala isbedeli kara aniga 100% ma oran karo laakiin sida aan ku rajaweynahay ninkani waa nin fanaan ah waa nin caan ah waa nin sida madaxda Soomaalida hogaamisa loo yaqaano waa nin thousands of taageero leh waa nin xaasid leh waa nin dad nicib leh sida dadka hadda ku andacoolaya shahwadiisii baa la xadaya wax la midka anigu qolkaaga inaan waa ku respect gareynaya nin adeerkay ah maxaan ku raahay fuweedo meeshan joogaa tahay laakiin adiga laftigaaga ma aha inaad qolkaaga inaad ka ogolaatid in family iyo reer iyo shakhsi iyo nin caan loogu tuubaraaco wiil yara oo isagu noloshiisa ku fashilmay ba halka intuu yimaado oo aan isagu iska warqabin oo isagaba question mark ay kor taagan tahay caafimaadkiisii inuu ka hadlo nin caafimaadkii ma aha islaan igu qaado aniga meeshan waxaan ku soo saaray waxay tahay meeshan wax looga hadlayo oo waxay tahay contradiction baan rabaa qofkii markuu hadlo wax kale taa lagu keenay hadalkiisii waa la beenaynayaa waxan deeq uu yirina wax la contradiction la weydiinayo waay